gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kula hadlay xafiiskiisa ayaa hambalyo ay ku dheehan tahay walaaltinimo iyo galgacayl u diray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Walaalaha Jabuuti mudane Maxamed Cali Xaamud oo kowdii bishan Maarso ay mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi doorteen kadib markuu geeriyooday gudoomiyihii hore ee dalkaasi Allah u naxariistay marxuum Idris Arnaud Cali 13 bishii Febraayo ee sanadkan mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee Jamhuuriyadda Walaalaha Jabuuti in Allah la garab galo xilka cusub ee u qabtay shacabka walaalaha Jamhuuriyadda Jabuuti isla markaana uu yahay shakhsi karti u leh hogaaminta baarlamaanka dalkaasi. maanta waxaa farxad weyn oo yareen inaan hambalyo diiran iyo salaan diiran iyo qadarin gaar aan u diro mudane Maxamed Cali Xaamud oo dhawaan loo doortay inuu noqdo loo xilqaamay inuu noqdo gudoomiyaha golaha xildhibaanada qaranka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. mudane Maxamed Cali waa qof saaxiib aanu nahay oo baarlamaanka Soomaaliyeed iyo xildhibaanadiisa aad ay isu garanayaan howlo badan aan isla soo galnay. waxaan hubnaa in mudane Maxamed Cali uu yahay qof kartida iyo hufnaanta lagu hagi karayo leh golaha qaranka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaan u dirayaa hambalyo sidoo kale xildhibaanada golaha qaranka ee dhammaan xildhibaanada ku jira golaha qaranka ee Jabuuti Jamhuuriyadda Jabuuti sida wacan iyo habsamida iyo dimuqraadiyadda wanaagsan iyo shafaafiyadda oo daahfurnaanta leh ay ku doorteen ay ku xilqaanteen in golaha uu hogaamiyo golahooda uu hogaamiyo gudoomiye mudane Maxamed Cali oo qof saaxiib ah aan soo wada shaqeynay oo howlo badan labadeena baarlamaan ka dhaxeeya aan isla soo qabanay. gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka hadlayay xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa tilmaamay in gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka walaalaha Jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay shakhsi si horumarin kara xiriirka iskaashi ee ka dhaxeeya labada gole. baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka Jabuuti waa laba baarlamaan oo walaalo ah ka duwan kuwa kale waa walaaltinimo iyo wada shaqeyn qoto dheer ay ka dhaxayso ilaa ay haddana howlo badan aan wada qabsanay leh xagga siyaasadda iyo iskaashiga ee arrimaha geeskan Afrika aan waxyaabo badan wada qabsanay aan hubo aan wada shaqeynta iyadan inay ka sii zaa'idi doonto howlaha aan wadnana ay si fudud u fuli doonaan oo howlaha ka dhaxeeya labada baarlamaan uu noqon doono mid oo aad u fudud fulintooda tan qaranka labada qaran xiriirkooda adkeyntiisana ay door badan ka qaadan doono. labada baarlamaan waa laba baarlamaan walaalaasaan horey u iri oo ay ka dhaxayso wada shaqeyn qoto dheer howlo badan aan soo wada qabsanay haddana aan filayno in aan kasii wanaagsan meeshii hore xiriirka iyaga oo kasii fiicnaan doono. Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Walaalaha Jabuuti marxuum Idris Arnaud Cali ayaa magaalada Muqdisho booqasho taariikhi ah ku yimid 12 bishii Diseembar ee sanadkii 2012 waxa uu khudbad qiiro leh ka jeediyay xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed. Nasr Basheer Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.